الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد إنay nabad macaan tahay amaba nolol ka maarmay nimcada ilaahay bariyeen nebiyadii koonku naaskaasi gaban aan dhadhamin go'ayaya u naadsha naseexada ayaa faham yidhaa nuxurka taabsiiya ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyinka uu inagu galladay ee uu inoogu nicmeeyey ee uu inagu barwaaqeeyey aad iyo aad ayay u fara badan yihiin haddii aynu isnidhaahno tiraya nicmadaha ilaahay idin siiyeyna ma tirin karno mana koobi karno ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha haddii aad ilaahay nicmooyinkiisa tiriya istidhaahdaan koobi maysaan ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi waasbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatina ilaahay wuxuu idiin ballaadhiyey oo uu idiin dhammaystiray nicmooyinkiisii wa fii qiraa'atin ukhraa nicmatan daahiratan wa baatina haddii aynu isnidhaahno tiriyana tiro kuma koobi karno waxaase jira nicmad muhiimaddeedu aad iyo aad ay u weyn tahay oo laga yaabaa in aynaan ku baraarugsanayn ama aynaan dareensanayn oo ah nicmadda amniga iyo ammaanka waxaa waajib inagu ah walaalayaal inaynu dareenno nicmadda qiimaheega aynu ku baraarugsanaanno oo aynu isxasuusinno oo aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaqno waxaa sidoo kale muhiim ah nicmaddaas ilaahay inagu galladay in aynu ka shaqayno sidii aynu u ilaashan lahayn ee aynu u xifdin lahayn waxaa kaloo iyadna muhiim ah nicmooyinka ilaahay bixiyo ma waaraan haddii aan laga jirin wixii ay ku suulayeen asbaabta iyo sababaha nicmooyinka ilaahay ay ku guuraanna inaynu ka digtoonaanno oo aynu iska ilaalino waxaa la wariyaa fi lahar nebi daa'uud calayhi salaam inuu ilaahay isagoo baryaya yidhi yaa rabbi kayfa ashkuruk ilaahayow sideen kuugu shukri naqaa sideen kuugu mahad celiyaa mahadcelinta aan kuu mahad celinayaba waa nicmad adigu galladay ilaahay wuxuu yidhi subxaanah al'aana shakartanii ya daawuudow hadda ayaad ii mahad celisay sidii dhabta ahayd markii aad aqoonsatay inaad ka gaabisay inaad ii mahad celiso ayaad ii mahad celisay nicmadda walaalayaal amniga ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu manno sheegtay quraysh ayuu ugu manno sheegtay markii ay ka jeesteen diintii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ilaahay wuxuu leeyahay awalam numakkin lahum xaraman aamina yujbaa ilayhi samaraatu kulli shay waxaa kaluu ilaahay subxaanahu wa tacaala aw la hadlay quraysh isagoo xasuusinaya amni darrada ka jirta hareerahooga iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu ugu galladay nicmada iyaga awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aamina wayutakhatafu annaasu min xawlihim iyada oo hareerahoogii lagu kala goosanayo dadka oo amni darradu ka jirto ayaa ilaahay wuxuu ugu mana sheegtay inuu iyaga siiyey nicmaddaas iyo xasilloonidaas baahida ruuxuu u baahan yahay amni iyo xasillooni iyo deganaansho waxay la mid tahay baahida uu u baahan yahay cuntada iyo biyaha iyo caafimaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka waxa uu ka warramay amni waxaana uu ku ladhay quudkii iyo cuntadii ayuu ku ladhay sunnada nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka amniga laga warramo waxaa lagu ladhaa oo la raaciyaa quudkii ayaa la raaciyaa ilaahay isagoo quraysh la hadlaya waxa uu yidhi falyacbuduu rabba haada albayt
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ربك بيت كان إسكالها عابدين ربك أباهيك قوديي عبسنا أمنك سيي ها عابدين أي إلهي سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم عليه السلام إلهي دعوين فربضا أيوبري وحياب فربضا أيوبيديستي وحيوبه ريي إلهي ويديستي وحيا هاي إلهي دلك النبض نوغدق أيوبيديستي وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام أنا يهوت كيغنا إلهي ونقفوك إن أنبو شريكي اللي هو أصنام أن عابدنا آيات كله وحوله إليه وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات مرك إلهي سبحانه وتعالى أمنك ويديستي وحو إلهي ويديستي إنه قوضيه ضدك بلد كاسد لجنو كو أرزاق الثمرات وحال وضع آيات بأن كفهمينا عباده هي مساجد للصواع عمره مجري سهدي أمن لوايو سيدو كلا وحلا عنو يا وحلا بيرتو يا وحلا شقيستو جري مايان حدي إلهي سبحانه وتعالى أمنك إنك قاضي أمنك ولا ريال سيدا ينصور شيكنا إلهي بابحيا إلهي بانا قاضى مركا أمضي لغو أرزاقي أي حجي سوايان أما وحيابه لغو إلى شنية يكو إلى شوايان وحيابها أمن دردا هي حصلون إلى أنت كنت وحاكمد إن إلهي سبحانه وتعالى نعمدي سي لغو كفريو إن لو غم حد علم وايو إلهي أول عاصيو ذنوب تغفر بلطي معاصده وحيزوليان نعمويك إلهي سبحانه وتعالى بحيو وعلى ركي سيمبريها تنبه إن لقى عبني مقالة إنه خمرة دي كسوب بلطي وبوليس كي إعلاميين إن أي قبتين خمرة فربضن ومقالة للسوق لي معاصدي حدث ولا حرج أي نقطين مناسبات بدن dadyo kala gadaalka riixayaan waqtiyo isku dhowdhow ay isku soo xigsadeen magaalada Boorama waxyaabahaas oo dhan ma ahan sudfa iyo wax isku soo aaday laakiin waxa weeyaan waxyaabo la qorsheeyay dadka muslimiinta marka waxa laga rabaa marka macaasida iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala in lagu caasiyo ay zaahir noqoto in iyaguna ka hortagaan oo ay isbaraarujiyaan oo inta hagaagsan ay qabato inta wadada ka leexanaya si loo wada badbaado magaaladeena walaalayaal waxa maalmihii u dambeysay dhacay waxyaabo aan caado u ahayn oo aan lagu aqoonin magaalada Boorama oo magaalo nabadeed ah oo magaalada ugu xasiloon la oran karo geeyiga Soomaaliyeed dadyoga Soomaaliyeedna ay farta isugu soo fiiqaan ku noolaanshaheega waxyaabaha aan lagu aqoonin oo aan dhaqan u ahayn oo sharaftii iyo haybadii magaaladu ay lahayd hoos u dhigaya ayay nagu soo kordhay waad ogeydeen maalmihiina soo dhaafay kooxaysigii iyo dhicii iyo boorkii iyo guryaha la gubayay iyo nabadgelyo darrada ka jirtay magaaladeena waa la socoteen waxyaabahaas oo dhani wax iska yimiday ma waa waxyaabo inagu aan ku kasbanay gacmaheena wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum markay xumaantu badatay ee isbaraarujin waayo waxyaabaha laga dhaxlo ayay kamid tahay marka waxaan isku baraarujinaynaa magaalada amnigeeda guud uu wanaagsan yahay waxyaabaha yaryar ee hadda soo kordhaya hadaan la iska kaashanin oo aan si mid ah looga hortagin wuxuu noqon doonaa dhaqan joogta iyo caado u noqda magaalada tilmaam aan wanaagsanayna ka bixiyo magaalada nabadda iyo xasiloonida ee Boorama waxaan ku talinaynaa walaalayaal dawladdeena iyo dadka mas'uuliyiinta gobolka ka ah in ay arrinkaas si weyn uga hortagaan dadka iyo shacbiguna ay ku taageeraan dawladda sidii arrimahaasi xal waara looga gaari lahaa waxaan ku dari lahaa walaalayaal qodobkan oo aan ugu dambaysiinaya insha Allah ta'ala fahmiga
iyo fahamka inaynu ka qaadano aynu u baahannahay amni iyo xasilooni sidee loo sugaa ma aha inuu ku koobnaado boolis iyo caruuris caydsanaysa keliya ma ahin inuu ku koobnaado inaa xoog keliya lagu xallin karo laakiin waxa weeye inuu ka ballaarnaado oo dadka diintoodii iyo akhlaaqdoodii iyo dhaqankooda la hagaajiyo caqiidada dadka loo toosiyo oo tawxiidka la baro in laga fogaado macaasida oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka lagu xidho waxaa kaloo muhiim ah amniga aynu u baahannahay jir ahaan ama xoolaheennu inay amni helaan iyo mumtalakaadkeennu waxaa ka muhiimsan amniga uu u baahan yahay caqligeenna iyo garashadeennu ummad haddii laga soo weeraro caqligeeda iyo garashadeeda oo amni darro xagga garashada iyo cuquushu ay ka dhacdo waxaa imanaya masaa'ib aynaan u taaghaynin saas darteed waxaynu leenahay sida ay u jiraan tuugada wax boobaysa ee xoolaha dhacaysa ee dadka dilaysa ayaa waxa u jirta tuugo kale oo ka halis badan oo dhalinyarteennii caqligii iyo garashadiiba ka xadaysa oo galbeedayn iyo afkaar aynaan dhaqan iyo diin u lahayn inoo soo waaridaya taa laftigeedu waa mid u baahan in lagu lamaaneeyo amniga xoolaheenna mumtalakaadkeenna iyo nafaheenna inaynu ku lamaanayno amniga cuquusheenna iyo dhalinyarteenna inaynu ilaalino